Guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa shaaciyay guddiga xulista ergooyinka dooranaya 6 kursi kuwaasoo isugu jira odayaal dhaqameed iyo 2 ka mid ah bulshada rayidka kadib markii ay guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland dhawaan ay shaaciyeen kuraasta ay qaban doonaan maalmaha soo aadan. Guddiga ayaa hoosta ka xariiqay in dhammaan xubnahan lagu soo xulay si waafaqsan xeerka guddiga doorashooyinka si looga hortago in doorashada aysan noqon mid aan daafurneyn sidii horey uga dhacday qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaana sidoo kale Jubbaland ay noqonaysaa dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee soo bandhiga guddiga soo xulaya ergooyinka, taas oo ah mid furan oo noqonaysa hannaan daafurnaan ee doorashooyinka golaha shacabka. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa horey ugu fashilmay in ay qabtaan doorasho daahfuran sida ay sheegeen qaar ka mid ah bulshada iyo siyaasiyiinta, waxaana dhammaan walaac laga muujiyay kuraastii guddiyada doorashooyinka labada dowlad goboleed waa Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay qabteen, kuwaasoo dib ay uga soo laabteen qaarkood, halka qaarkood kalena ay u baahdeen baaritaan in lagu sameeyo. Ugu dambeynna guddiga xalinta khilaafaadka ay ka falceliyeen. Waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan kulan magaalada Muqdisho ay ku yeeshaan madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble si loo dardargeliyo hannaanka doorashooyinka daafurnaanta loogana fogaado wax walba keeni kara in doorashada la boobo. Cabduqaadir Maxamed, wararka Somali People TV, Muqdisho.